Real Madrid oo xasuuq aan loo meeltay inuu geysatay naadiga Barcelona kula guuleysatay koobka Spanish Super Cup maxaa laga diiwaangeliyay kulankii xalay ee Barcelona iyo Real Madrid maxaa ka qaldanaa kooxda Barcelona muuqaalkan ayaa ku gula wadaagi doona ay soo dhow daawade balse marka hore like muuqaalka sina share kare waad nagu mahadsantahay la socodkaaga ila jaanqaadkaaga markasta haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo qayb nagala qaado warbixinta muuqaalka adigoo follow kareynaya bookkeena kulmis channel si aad u hesho warbixinada ciyaaraha kubadda cagta mahadsanid kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobkeedii koowaad ee xilciyaareedkan kaasi oo noqday Spanish Super Cup oo ay ku garaaceen xalay naadiga Barcelona oo ay finalka isugu soo baxeen Real Madrid ayaa guul ay u qalmeysay ku bahdishay Barcelona oo kaliya magacu uu ahaa midkii ay taageerayaashu yaqiineen laakiin ciyaartoydu aanay dheedin kubadii looga bartay ee Tiki Taka Los Blancos ayaa siday doonto ka yeeshay kooxda Barcelona waxaana ay ku xasuuqday 4 gool waxaana saddexley ka mid ah goolashaasi ku niyad jabiyay Vinicius Junior oo markiisii koowaad ka dhaliyay Barcelona 3 gool oo hal kulan ah daqiiqadii toddobaad ayuu Vinicius Junior ka dhuuntay daafacda Barcelona oo isdhigtay waxaana uu kubad uu bartamaha garoonka uga dhex tuuray Jude Bellingham uu la kortagay kulaayay Naaki Bina oo dhinaca inuu ka maray kadibna ka dhaliyay goolka koowaad ee ciyaarta 3 daqiiqadood kadib Real Madrid ayaa u dabaaldegtay goolka labaad oo isaguna ahaa weerar rugaal celisa Toni Kroos ayaa kubad dhinaca midig ugu duuray Rodrigo Guiz oo ka dhuuntay daafacda Barcelona oo markale iloobay inay goolkooda ay ilaashadaan waxaana uu kubadda goolka hortiisa u dhigay Vinicius Junior oo isku duuray isla markaana labada lugood wada jira ugu leexiyay goolka iyadoo Ronald Araujo oo shaqadiisu ahayd in uu wartiyeeyo Vinicius Junior uu maaro waayay kulankii xalay Roberto Lewandowski ayaa dib u soo celiyay niyadda ciyaartoyda Barcelona waxaana uu daqiiqadii 33 u dhaliyay gool uu banaanka ka doogtay oo uu darbad xooggan daba mariyay Kulahay Lunin sidaasna uu ciyaarta uga dhigay 2 gool laakiin 6 daqiiqadood kadib ayuu Ronald Araujo uu qalad ku galay Vinicius Junior oo xalay sidoo doonto ka yeeshay waxaan loo dhigay rigoore uu laacibka Brazil uu gool u bedelay isla markaana ciyaartu ka dhigay 3 gool isagoo xaqiiqsaday saddexleediisii ugu horeeyay ee uu ka dhaliyo naadiga Barcelona markii lagu soo noqday qaybta labaad ayay Barcelona culays badan soo saartay goolka Real Madrid laakiin xidiga Los Blancos ayaa u ciyaarayay deganaan iyo difaacooda oo ilaashadeen waana halka meel oo ay Barcelona xalay kaga wanaagsanayeen xidiga Barcelona Real xidigeeda ayaa isku wada xirnaa qadka dhexe daafaca ilaa iyo weerarka halka Barcelona ay ahaayeen kuwa kala taadsan qadkooda dhexe daafacooda iyo weerarkooda oo aysan jirin wax ay ciyaartu ka sameeyeen Real Madrid ayaana goolkii afraad dhalisay ciyaarta waxaan u dhaliyay Rodrigo Guiz Jude Bellingham Fati Valverde Tchouaméni iyo Brahim Diaz ayaa qasaariyay fursado ay goolasha ugu sii dheereyn lahaayeen Real Madrid halka Barcelona uu qaybta labaad casaan kaga baxay Ronald Araujo oo ay u ahayd habeen murugo iyo fadeexada kadib markii uu maaru waayay laacibka Brazil ee Vinicius Junior Real ayaana sidaas ugu guuleysatay koobkeedii 13aad ee Spanish Super Cup ciidanka reer Brazil ee Vinicius Junior ayaana xalay dib u xasuusiyay taageerayaasha labada dhinac ee Barcelona iyo Real Madrid laacibkii hore ee Real Cristiano Ronaldo kadib markii uu u dabaaldegay qaabka uu caan ku yahay Ronaldo oo isagoo xalay ciyaartaasi ka daawanayay qaybta tarabuunka kuna darso waxa lagu ciyaarayay garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Al Nassr ee uu hogaamiyo Cristiano Ronaldo Vinicius Junior ayaa sidoo kale xalay taariikh sameeyay waxaana uu noqday Braziliankii ugu horeeyay ee 3 gool ka dhaliya naadiga Barcelona kulanka El Clasico hambalyo naadiga Real Madrid sorry xidiga Barcelona komadiga ku soo qora hala Madrid aad baad u mahadsantihiin